aan geynayo sidaa darteed waxaan hadalka ula jeedaa meesha aan geynayo waa meel la hubo boqolkiiba boqol inaysan maaragta awsan waxba ku samayn karin hadalka nuxurkiisu waxa weeye ninkan mas'uuliyadda soo dhammaan gacanta ku haya muuqaal khaldan iska daaya hal sawir oo khaldan ma geli karo dalkana kama gudbin karo Soomaaliya waxaan u sheegay inaysan club ku ool waxaan u sheegay inaan laga ogolayn khamri in lagu isticmaalo wal dad Soomaaliyeed oo isticmaalo way jiraan laakiin anigu waxaan inta u diidayaa maadaama aanu nin dhalinyaraayo ninka aniga ila joogo Soomaaliya hotelkiisaas ku jiraya xilligii uu meel u baahdo dalxiisa waa loo kaxaynaya kadibna dalkiisii baa loo diraya ma ogoliya hal kaliya oo Soomaaliya aw meel xitaa dhiiqa yara taala inuu ka duubo oo uu diro aniguna ma aqbalayo haddii aan aqbalana dee waxaan noqonayaa khaa'in wadan baa la yiraahdaa qofkaas kale yani qof wadankiisii khiyaamay baa noqonaya midna waxaan leeyahay waxa ii hartay iga raali ahwadi midna waxa ii hartay wariyaasha Soomaaliyeed baa leeyahay wariyaashu waxay soo qaateen runtii muuqaalkii Basadiir oo isaguba horay isaga difaacay inuu wadanka ku isticmaalin أو دلكيسي كدوبي طبعا مقالكاسي إن بدن بي يعني جيسب نعيه بدن وكذا لين مقالكاسنا وكذا هذين بصدير والله دليل كرا وعن الله وبركاته waxaan rabaa inaan idin la wadaago ninkii aan idinka digay maalintii ugu dambeysay aan umada ugu digaynay xalay wuxuu sameeyay ayaan rabaa inaan idin la wadaago markii uu dhamaaday barnaamijka show ay ku sheegeen wuxuu markaa sameeyay wuxuu yiri wax dhalinyarada qaybta wiilasha wuxuu dhahay gadaal iga baxa wax sawir aan idin galay ma lahan kaliya waxaan rabaa gabdhaha inaan sawir la galo marka kadibna wuxuu sameeyay wax cajiib badan waa muuqaalka dhameyso ilaa ay dhamaadkiisa daabo ninkan horaan ugu dignay waa nin maxaan ku dhahaa faaxishada sameeyay waa nin maxaan ku dhahay ummadan muslimiinta fasahaadiyay loo keenay xamar waa nin gabdhihii muslimiinta ee xijaabnaa maxaan ku dhahaa inuu ula dhaqmo sidii kuwii gaalada ahaayo ummadda indhaha ku tiray oo kale ula dhaqmo raba marka ila daawo muuqaalka waxa uu sameyn doono bay ila daawo muuqaalku wuxuu sameyn doono ila daawo sidoo gabdhaha sawirka ula galaayo qaabku gabdhaha ugu dhagdhagaayo maxaan ku dhahaa gabdhii naftirkooda xishoodkooda iyo diintooda meelay dhigeen ninkan Afrikaanka ah maxaan ku dhahaa bili aadamkii ugu fool xumaaya ay maxaan ku dhahaa sawir la galayaan waxay iska dhigayaan in nin maxaan ku dhahaa nin muslim oo daaciye ama khadiibe ama maxaan ku dhahaa umada karaam ku leh inay sawir la galayaan ayad moodaa qaabka ay ula galayaan bal ila daawo sidoo qaabka sawirka la galayo gabdhihii wacana gabdhihii si uu dhagayna ilaa fiir gabadhaas subhanallah bal eeg gabadhaas si sawir ula galayso fiir la hawla wala quwwata illa billah eeg sidoo gabdhaha uu dhagay ninkaas intaas loo keenay kaliya faaxishadas inuu sameeyo kaliya wuxuu leeyahay kasikada wiil oo dhan mar rabo inuu yani mikrofoonka qaato wuxuu dhahay wiilasha markiisa iga sikada oo dhahay idin dhan banaanka iga tagay idin mar rabo gabdhaha soo xaroodo wuxuu u yimaaday kaliya intaas waa ilaa ninkan dumarka oo faaxishada yani ku sameyn jiray foolxumadooda si ahaayeen ogeyd gabdhaha marka yani wali yaabeen quruxda badan leh gabdhahan quruxoon oo xijaaban wali yaabeen maanta jaanisku ugu weyn ee dunida yani haystaan yaa waxay la mid tahay isagoo maanta Sacuudiga jooga ama wadamada Carabeed oo kale ama wadamadan kale maxaan ku dhahay aan Afrikaanta ahayn ay yani ugu dhiganta isagoo maanta jooga marka sidaas gabdhaheeni waa ka subhanallah gabadhaas sexy uga galaysa la hawla wala quwwata illa billah ay gabadhaas muslimada ah ee quruxdaas badan ninkaas saas u yeela ay maxaan ku dhahay yani isaas ugu dhagaysa subhanallah ee gabdhihii xijaabna ee muslimiinta ah sida loo gala fiiri marka ninkan arrinkiisa wixii maxaan ku dhahaa in cid walbo awood u leh inay wax ka qabato ninkaas in wax laga qabta ayaan yani ku talin lahayn hadii aan nahay dhalinyarada
muslimiinta ee Soomaaliyeed Muqdisho joogta ninkaas qalad weyn iyo gaf weyn ayuu yacni gabdhaha muslimiinta ka galay sida ugu dhigay gabadha xijaaban sida ugu dhigay bal yaa inay muslim tahay ma ogo marka ninka asaga ah in wax badan laga qabto ninkan waad arkaysaan diintii meel ugu dhacay Soomaalinimada meel ugu dhacay kuwii keenay asaga in talaabo laga qaado ayaan ka codsan lahay wasaaradda diinta oo qaafta haddii ay shaqaynayso hadaysan magacyaal ahaynin gabdhaha quruxda badan leh sidoo bal sidoo yacni sabr ula galay bal sidoo leeyahay ninka wax la fiirsan karo wax la daawan karo maaha ninka isaga ah jaanisa noo furan wuu joogaa ninkan cid walba wax ka qaban karta inay wax ka qabato ayaan codsan lahayn gabdhaheena sharafta la muslimiinta ahaa sidaas u galay mid walbaba wuu soo jiidanaya subxaana